waxaan jeclaan lahaa inaad ila qiyaasid muuqaalkan soo socda. waxaad joogtaa gurigaaga, waxaad gacanta ku haysataa furayaasha gaarigaaga. laydhka ayaa kaa baxay koronto la'aan awgeed, waxba waad arki weysay. qolkaaga fadhiga ayaad ku turanturoonaysaa, furayaashiina way kaa dhaceen. waxaad fiirisay hareerahaaga daqiiqad, waxaadna xaqiiqsatay inaadan weligaa ka dhex heli doonin gudcurkan. laakiin waxaad eegtay bannaanka, waxaadna ogaatay in laydhka waddada uu daaran yahay. sidaa daraaddeed maskaxdaada iftiinka nalka ayaa kuu baxaya. ma sii fadhin doono halkan mugdiga ah oo ma ka raadin doono furahaygii marba haddii nal bannaanka uu ka jiro. waxaan aadayaa halka nalku uu ka daaran yahay. waxaad u soo baxday bannaanka, waxaad raadinaysaa furahaagii. waad raadisay deriskii ayaan kugu soo baxay asagoo odhanaya, maxaa dhacay ciise? hagaag, furahaygii ayaa iga lumay. waan kaa caawin doonaa inaad hesho furahaagii. labadeennuba hadda halkan hoose ayaan furihii ka raadinaynaa. ugu dambayntii wuxuu igu yidhi, iga raalli noqo, xaggee kaaga dhaceen furayaashaadii? hagaag, waxay iiga dhaceen guriga. wuxuu yidhi, ma waxaad u jeeddaa inaad ii sheegto inay furayaashaadii guriga kaaga soo dhaceen, kadibna waxaad ka raadinaysaa halkan waddada dhexdeeda? wax macno ah ma samaynayso. kadib waxaan idhi, wax macnaha ma samaynayso in gudcurka laga dhex raadiyo haddiiba halkan iftiin ka jiro. hadda waxaad la yaaban tahay doqonnimada maanta ciise haysata, laakiin taasi ma waysan hayn xaqiiqada dhexdeenna taalla maanta. markaan dhibaato la kulanno ama xaalad adag oo gudaheenna ah, kadibna aan ka raadinno xalka bannaanka, waxaan ku siinayaa 2 qodob kuwaasoo kaa caawin doona horumarinta naftaada. qodobka koowaad, ha u oggolaan tagtadii hore inay maamusho noloshaada maanta ama mustaqbalkaaga. wax kastoo dhacay waa inaad isaga dhaqaaqdaa. ka tag xanuunka wixii aad soo dhaaftay si uusan mustaqbalkaaga u burburin. ka tag mugdiga aad ku soo dhaaftay gadaashaada si aysan u hor istaagi karin iftiinka mustaqbalkaaga. wax kastoo dhacay, ha noqdeen cadaalad darro, naxariis darro, qallafsanaan, wax kasta ha noqotee, dib u cusboonaysiinta dhacdooyinkan weligaa wax ku tarimayo. haddii qof qalad kaa galay, sida keliya ee aad kaga guulaysan karto waa inaad iska dhaafto, adna horay u socoto. haddaad ku nooshahay nacayb, waa lagaa guulaysanayaa. haddii aad ku nooshahay sheekada dhibanaha, waad khasaartay. haddaad rabto inaad guulaysato, waa inaad xoogga saartaa dhismaha mustaqbalkaaga oo aad hadda bilowdo. kasidaa miisaankaas dhabarkaaga si aad xor u noqoto. ha u oggolaan dhacdooyinkii hore ee tegay inay burburiyaan wakhtigan la joogo, xilligan kaasoo hadda lagu farxo, kaasoo diyaar u ah inaad si buuxda ugu noolaato. qodobka labaad, u qaadashada nolosha mid aad u adag. in badan oo inaga mid ah noloshooda waxay ku nool yihiin baqdin in khalad uu ka dhaco. mar walbana waxay doonayaan in ay saxnaadaan. kaagama sheekayn karo heerka doqonnimo ee runtii arrintani ay gaarsiisan tahay. wakhtigani waa wakhtigii aad tijaabooyin badan mari lahayd. waxaa jira Mark Zuckerberg, weedh hagaysa ayaa waxay ahayd, dhaqso u dhaqaaq oo wax jabi, yacni ha cabsan. sida ugu dhaqsaha badan ee aad u fashilanto waa mar kasta oo aad guusha u sii dhawaato. mana ogaan kartid intaaad ku jiri doontid safarka nolosha. ha ugu noolaan noloshaada sida qof had iyo jeer dhahaya, dib ayaan ka raaxaysan doonaa. waxaan ku soo gebagabaynayaa kelmad laga qoray Elon Musk: u bareer khatarta intaad yar tahay. mar kasta oo aad weynaato, waajibaadkaagu way kordhayaan. mar haddaad reer yeelatana, waxaad bilaabaysaa inaad khatar u gasho naftaada keliya maahee sidoo kale qoyskaaga. way kugu adkaanaysaa inaad samayso waxyaabo laga yaabo inaysan shaqayn. marka hadda waa wakhtigii aad wax qaban lahayd ka hor intaysan waajib ku saarin.